Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyada Sland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay isla markaasina been abuur ku tilmaamay wararka sheegaya in xuduudka Somaliland iyo Ethiopiya ee Togwajaale lagu xidhayo Sland. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa bulshada reer Wajaale waxa uu ugu baaqay in aanay dhag jala qusinin hadallada ku tiri ku teenta ee la isla dhexmarayo. Wasiirka oo ka hadlaya ayaa yiri waxaan doonayaa in halkan kale fariin mariyo dekada qalanay leena Wajaale wadakad aanu balaanin doono casriyeyn doono wax kasta oo adeega ganacsi fududeynaya aan sameyn doono afmeeshaarada maalmahan dambe dekada la xayndaabaya waa been abuur aan saliyar raartoona lahayn cid xayndaab ku sameynaysa ma jirto waxaan dhiirigelinaynaa in ganacsiga isdhexgalka iyo dadka inaga dhex ganacsanaya aan soo dhaweyno adeeg kasta u baahan aan u fududeydino waxaan doonaynaa in ummad baynu nahay taariikh u leh ganacsiga in ganacsigeenu meel walba uu gaaro aan ka shaqeysino dekedeena Berbera isku soo wada duub oo hadalkani ayaa ku soo aadaya xilli dadweynaha ku nool magaalada ganacsiyeedka xuduudka Ethiopiya iyo Somaliland ee Togwajaale ay maalmihii ugu dambeysay isla dhexmarayeen in Ethiopiya iyo Somaliland xuduudka u dhaxeeya lagu xidhayo Sland iyadoo ay jiraan warar kale oo sheegaya in cashuuro dheeraad ah lagu soo rogay dadka iskaga kala goosha magaalada ganacsiyeedka Togwajaale. waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Jubba muuqaal maqalka caalamiga Sland TV gobolka cagaaran